door wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhurnimo idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland qodobada warka duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo u hambaliyay guuleystayaasha Kismaayo oo ku guuleystay tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka socday telefishinka qaranka Soomaaliyeed dowladda Kenya oo joojisay duulimaadyada diyaaradaha Soomaaliya madaxweynaha hore Hirshabelle oo sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya xayirtay lacag loogu deeqay Hirshabelle dowladda Sacuudiga ayaa eedeysanayaal ay Soomaali ku jiraan qabatay iyaga oo darooga gelinaya gudaha dalkaasi aqaad ganacsato Kenyan ah u soo waday Soomaaliya oo la joojiyay wararka dibadda warka duhur aad ku maqli doontaana waxaa kamid ah Mareykanka oo gantaalo digniin ah ku riday dooni ay leedahay Iran waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan waa hagaag dhageystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idin kale nahay dhageystayaal waa 29 bisha sagaalaad ee Ramadaan 1442 dhanka kalena waa 11 bisha shanaad ee May sanada 2021 intaasi aad maqasheen dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warkayga duhurnimo haatan u diyaar garooba dhageystayaal dhageysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan warka duhur waxa halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah Kamaal Maxamed Axmed Keenan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa u hambaliyay guuleystayaasha Kismaayo oo ku guuleystay tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka socday telefishinka qaranka Soomaaliyeed Cabdifataax Ali Maxamed Daljir ayaa inoo faahfaahinaya madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa hambalyo u diray guuleystayaasha tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan kaasi oo uu qabtay telefishinka qaranka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo qoraal hambalyo ah soo dhigay bartiisa Facebook ayaa yiri Kismaayo caan kuma aha kaliya kubadda cagta balse waxaa sidoo kale heerar kala duwan ay ka gaadhay aqoonta iyadoo sanadihii la soo dhaafay guulo la taaban karayo ka gaadhay tartanka aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa yiri waxaan mar kale u mahadcelinayaa tartamayaasha kale ee ka qayb galay tartanka iyo waliba telefishinka qaranka oo soo qaban qaabiyay tartankan dowladda Kenya waxa ay joojisay duulimaadyada diyaaradaha Soomaaliya waa kan wariyahayaga Maxamuud Cali Xasan Caddo oo inoo faahfaahiya dowladda Kenya ayaa saaka joojisay dhammaan diyaaradaha ka taga Soomaaliya ee taga dalkaasi Kenya marka laga reebo diyaaradaha qaramada midoobay iyo kuwa gargaarka diyaarado sida dad shacab ah oo u socday Soomaaliya ayaa saakay la hakiyay iyadoo talaabadaasi ay Kenya u qaadayso sababo la xiriira qaadka Kenya oo ay Soomaaliya keeni jirta oo wali xayiraad uu saaran yahay war ka soo baxay hay'adda duulista hawada ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in laga bilaabo 11 May ilaa 9 Agoosto la hakiyay duulimaadyada Soomaaliya aada talabadan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii labada dal ay sheegeen inay dib u soo celiyeen xiriirka diblomaasiyadeed balse hay'adda duulimaadka Soomaaliya ayaa maalin ka hor sheegtay inaan la fasixi doonin qaadka ka imaan jiray dowladda Kenya oo horay dowladda Soomaaliya ay xayiraad u saartay madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya xayirtay lacag loogu deeqay Hirshabelle Maxamed Ibrahim Karama ayaa inoo faahfaahinaya madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay xayirtay in ka badan 35 milyan oo dollarka Mareykanka ah dowladaha Talyaaniga ee Sweden midowga Yurub iyo bangiga adduunka ay ugu deeqeen fatahaadaha wabiga Shabeelle qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu nasiib darro uu ku tilmaamay talaabadaasi uu sheegay in lacagtaasi ay xayireen wasaaradda maaliyadda qorsheynta iyo beeraha hadalka madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa ku soo aadaya xilli deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe uu fatahaad ka sameeyay wabiga Shabeelle lama ogo khasaaraha ka dhashay fatahaadaasi dowladda Soomaaliya ayaa wali wax jawaab ah aanan ka bixin warkan kaasoo ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare
dowladda sacuudiga ayaa eedeysanayaal ay soomaali ku jiraan qabatay iyaga oo daroogo gelinaya gudaha dalkaasi. cabdulmajiid cabaas aadan fantastic ayaa faahfaahinaya. afhayeenka ciidanka sacuudiga ee ilaalada xuduudaha ee ninka lagu magacaabo korneel masfar bin khanaam al qurayni ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 25 eedeysane oo doonaya in si tahriib ah daroogada loo yaqaano xashiishka iyo qaadka ay ku soo geliyaan sacuudiga. waxa uu intaasi ku daray in eedeysanayaasha lagu soo qabtay howlgallo ka dhacay magaalooyinka najraan iyo weliba jizaan ee koonfur galbeed ee sacuudiga una dhow xuduuda yeman. eedeysanayaasha waxaa la sheegay in ay wadar ahaan lagu qabtay 802 kiilo oo xashiishka daroogada ah iyo 25.4 oo tan oo qaadka. afhayeenka waxa uu xusay in 25 eedeysana ay la qabtay ay kala yihiin 3 muwaadiniin oo sacuudiyaan ahi 2 Soomaali ah iyo 14 Yemeniyiin ah iyo 4 Etoobiyaan ahi. eedeysanayaashan oo la soo qabtay bishan May 7 ayaa waxa loo gudbin doonaa maxkamadaha ku shaqada leh dambiyada loo haysto. qaad ganacsato Kenyaan ah ay u soo wadeen Soomaaliya ayaa la joojiyay. maxamuud saciid axmed fawzi ayaa inoo eegaya. ganacsatada qaadka ee Kenya ayaa sheegay inay ku hungoobeen soo celinta xiriirka uu dalkooda la leeyahay Soomaaliya iyagoo filayay in qaadkooda ay u dhoofin karaan Muqdisho. qaad xalay loo dhoofin rabay Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in uusan gaarin halkii loo waday sida ay sheegeen ganacsatada dirsatay. nuuriya cabdinuur xasan oo ka tirsan ganacsatadaasi ayaa warbaahinta u sheegtay in khasaare lixaad leh uu ka soo gaaray iyadoo sheegtay in lacagihii ay ku shaqaynayeen ay Soomaaliya uga xiran yihiin. waxaa nagula yidhi Soomaaliya iyo Kenya way heshiiyeen ee qaadkiina soo rarta garoonka diyaaradaha ayaan geenay kadibna qaadkii waa nagala xareeyey waxaana markii dambe nagula yidhi Soomaaliya qaad dhulkeeda ka degayo ma lahan ayay tiri nuuriya. waxay sidoo kale ay sheegtay inaysan jirin cid u sheegtay ilaa hadda in qaadkoodii la dhoofiyey iyo in uu Kenya wali yaalo. nuuriya ayaa dhanka kale sheegtay in aysan garanaynin sababta dhabta ah ee aysan qaadka u dhoofin karin xilli khilaafkii Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay ay ka heshiiyeen iyadoo sheegtay in lacagihii ay ku shaqaysanayeen ay Soomaaliya uga xiran yihiin. halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. markan wararka dibadda intaanan u guda gelinna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha ee warka duhur. cabdirasaaq al cabdulla socoto ayaa la diyaara. aad baad u mahadsan tahay Kamaal Keenan. dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka aan ku bilaabay. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa in dib ugu soo laabato wadada guusha ee horyaalka La Liga markaana caawa ay garoonka kusoo dhaweyneyso naadiga Levante kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain. jamaahiirta Barcelona ayaa doonaysa in kulanka caawa ay wacdaro ka gaarto islamarkaana ay guul ka soo hoyaan. sidoo kale naadiga Levante ayaa sidoo kale doonaya in kulanka caawa ay guul ka gaarto. kulankan oo ah mid aad u xiiso badan ayaa waxa uu soo galayaa caawa 11 oo fiidnimo xilliga geeska Afrika. xubinta ciyaaraha warka waa naga inta aan dib idinku celiyo qibaa warka ka dhiman. wahagaag markan wararka dibadda. Pentagonka Mareykanka ayaa sheegay in markab ka mid ah kuwa ilaaliya badaha Mareykanka in markaasi gantaalo digniin ah oo ku riday doomo ay leedahay Iran oo si aad ah uga soo dhawaatay markab kuwaas oo gantaalka dagaalka oo marayay marinka Hormuzka. Pentagonka waxa ay sheegeen in 13 doomood oo kuwa dheereeya ah ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran ay isniintii maraakiibta dagaalka Mareykanka ay usoo jirsadeen 140 mitir. Pentagonka waxa intaasi ay ku dareen in doomihii ciidamada badda Iran ay goobtii ay ku tageen kadib markii 30 gantaal oo digniin ah lagu riday. dhacdadani ayaa noqonaysa tii labaad oo muddo 2 toddobaad gudahood ah aaga marinka Hormuzka ka dhacda. afhayeenka Pentagonka Mareykanka Johan ayaa
doomaha iiraan waxa uu ku eedeeyey inay daandaansi ay kula kaceen maraakiibtooda dagaalka ee marinka hormuska markaasi marayay warkii duhur waad kala socoteen idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland dhegeystayaal xilligani waa nageynta